السلام عليكم أصحابتا كسر دوادة مركلة يبرامجة عافماتك يعني مرة بيكجسوا قد بينو بوجينن بكان ديق كلينيك المقال كينن وحنا وجهل الدونا ولا عاحلقة أو باللوضو يوقتك أو كوجهي ولعوا ولا لبو يمتك على مدوه أور عصب وحاولنا باللوضاء قياس أهان أسبوع اللحاد أوركا هو يوالبا أو أور لنا ويسكو أركي كرتا مركا لجربه ترير أو كميدا دمرك أور كله waxa uu dhamaadaa isbuuca 12aad ee uurka dhibaato kuma ahan hooyada iyo ilmaha uurka ku jira walacu waxa uu dareensiyaa hooyada wax waliba oo dhibaato ku ah ilmaha ku abuurmay ilma galeenkeeda waxaana dhacda in hooyadu cuni weyso cuntada dhadhanka adag leh iyo cabitaanada aashitada leh hooyada calaamadaha walaca isku aragta waxay ka caafimaad wanaagsan tahay xilliga uurka tan aan isku arkin calaamadaha walaca sababaha walaca inkastoo si dhab ah aan loo ogeyn waxa sababa hadana cilmi baarayaashu waxay isku raaceen inay aad u bataan laba hormoon xilliga uurka uu bilowga yahay sababtana ay u noqon karaan calaamadaha walaca hormoonada bata kow hormoonka sheega in hooyadu uur leedahay ee kaadida ama dhiigga markii la baaro lagu ogaado in uur jiro ee lagu magacaabo HCG ama Human Chorionic Gonadotropin labo hormoonka kale ee caadada saxa xilliga galmadana diyaariya in uur dhaco uurka kadibna qayb ka qaata ilaalinta uur ku jira ee lagu magacaabo progesterone waxyaabaha loo baahan yahay inay sameyso hooyada walaca cun raashin aan aad u badnayn cab biyo saac kasta raashinka kadib iyo ka hor caawimaad weydiiso si raashinka aad cuni lahayd lagugu kariyo ka dheeraaw goobaha kulul maxaa yeelay lalabada ayay kugu badin karaan isticmaal qaraha oo kamid ah miraha jirka nafaqeeya ee biyaha leh sameey jimicsiga dumarka uurka leh u wanaagsan ee lagu magacaabo pelvic floor exercise waxyaabaha la iska ilaaliyo xilliga walaca ha seexan meel kala koreysa oo madaxaaga hoos u raaricisa ha hilmaamin waqtigii raashinka uu ku go'naa inaad isticmaashid oo aad mar walba isticmaali jirtay ha karin raashinka aad cuni lahayd basbaasna ha isticmaalin haddii lalabada iyo mataga uu aad u badan yahay oo tabardari aad u sareysa ay dareento gabadha uurka leh takhtarka inay la xiriirto waa muhiim sababtoo ah waxa dhici karta in walcu uu isku bedelay midka darsada ee lagu magacaabo hyperemesis gravidarum kaas oo u baahda fuuq celin degdeg ah qoraaladan iyo kuwa lamid ah oo ku saabsan hooyada uurka leh laga soo bilaabo marka ay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda waa madsantiin